بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan idinku salaamayaa magaca iyo mansabka uu qof walba leeyahay halkan ku fadhiyo ujeedka kulankeena caawa waa soo dhaweynta iyo xog waraysiga wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya mudane ambassador Axmed Ciise Cawad waxaa mahad gaar ah iskale oo aanu mahad celinaynaa guddiga qabanqaabada munaasabadan jaaliyadda Soomaaliyeed ee London oo isxilqaamay marka waxaan jecelahay intaan barnaamijka u galin inaan ku furano ayadaha Quraanka Kariimka waxaan noo furaya Sheekh Cabdirasaaq Xayle والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضاه ألم يجدك يتيما فآواه ووجدك ضالا فهداه ووجدك عائلا فأغناه فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم walaalayaal sidaan idin sheegay ujeedka ugu weyn ee caawa halkan aan isugu nimid waxay tahay inaan xog waraysi ka helno xog waran ka helno wasiirka arrimaha dibadda dalka oo safar ku joogay magaalada London xalayna ku hoyday oo u tagay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Dublin ee wadanka Ireland marka insha Allah taala sagaan u yeeri doona mar dhow laakiin waxaan ka hormarinayaa dad khiyaar ah oo ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkan degan marka waxaan jecelahay markan inaan u yeero gudoomiyaha guddiga qabanqaabada Dr. Saciid Sheekh Abubakar inaad soo dhaweysaan jecelahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة مباركة من عند الله walaalyaal waxa weeye runtii caawa waa habeen aad u qiimo badan waa habeen aad iyo aad farxad u leh sababtoo ah waxaanu soo dhaweynaynaa wasiirkeena arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga saad ogtihiin waxa weeye wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waa mirayada dalka waxaan soo dhaweynaynaa wasiirkeena Axmed Ciise Cawad السلام عليكم ورحمة الله جالية الصومالية لندن oo jaaliyadaha ugu qiimaha badan uguna tirada badan uguna tayada badan runta Yurub ay ku soo dhaweynaysa runtii waxa weeyaan intaanu qofood oo qaarkood ay ka yimaadeen meel fagfag qaar ay ka yimaadeen Yurubta qaybaheeda waxa inta ay u yimaadeen inay ku soo dhaweeyaan ayna mataqaan ay ku dhageystaan qiimaha badan oo wasaaradda arrimaha dibadda runtii kulliyan waa wada ogsoonnahay fanna ma ahan wasaaradda arrimaha dibadda sida wasiirkeena uu qabtay Axmed Ciise waxyaabo badan ayaa iska bedelay horumar badan ayaa sameysay caalamka oo aan muddo badan aan ka maqnayn ayaynu u noqonnay positionka aan ku lahayn inaynu qaadano marka runtii waxay tahay marka isku imaashada haddaan lagu jecleen qofku waxa lagu jeclaadaa wax qabadka qofka markuu wax qabto waxa weeyaan in loo mahad celiyo waxay kamid tahay qiimaha diin ahaan iyo dadnimo in allaha shaakirun alim ilaahi uu khalqay marka wanaag aad sameeysid ilaahi waa ku mahad celinaya waxa kaloo jira xadiidka oranaya man lam yashkur an-nasa lam yashkur illah qofkan dadka aan u mahad celin ilaahi uma uusan mahad celin marka waxa weeyaan jaaliyadda London oo runtii caawa aan maanta halkan ku soo dhaweynayna wasiirkeena anigoo gudoomiyaha kumeel gaarka ee jaaliyadda Soomaaliyeed haddaba haddaynu doonayno inaan annagu awlan nafteen aan wax u tarno dabadeedna aan wax u tarno dalkeena waa inaan annaga aan midowno oo midowgu waa wax aad u qiimo badan warta diyaar ma u tihiin in la midoobo wayn midoobeena waxa weeyaan waxa dhibka wada dadku sidiisaba da ahlu khayraha jira
dad ahlu sharna waa jira kan ahlu sharka waa un ducaynayna ilaahay inuu soo toosiyo kan ahlu khayrkana waxa weeyaan aynu dadaalno in allaha yuhibbu alwahda ilaahay wuxuu jecel yahay midnimada marka hadaynu isqiimeeyno annagana wax baan qabsanaynaa dalkeenana wax baan u qabsanaynaa waxa weeyaan marka warku dad badan baa iga dambeeyay waxaan rabnaa warka inaan wasiirka aan dhageysano khayrul kalaami ma qalla wa dalla hadal waa murti wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka wasiirka waxaan jecelahay inaad ila soo dhaweysaan idinkoo uga mahad celinaya waqtiguna siiyey marka saacad wasiir soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انت أنا نقل إن وركيجا وحان مركولة ربا إن أنا استجدت عسينه دتكي الصوماليات كوا أرحم لاوياشة أي كوجو مادين magaalada Kismaayo shalayto oo inoo ka dhinteen dad qaali ah oo aad iyo aad inoo ku weyn marka waxaan rajeynayaa in aynu u ducayno oo aynu daqiiqad u akhrino faatixada intii dhimatay Allah u naxariisto ehelkoodiina sabir iyo iimaan Allah ka siiyo ummadda Soomaaliyeed inta dhaawacana ilaahay caafimaadka u soo dedejiyo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadkii xafladan soo abaabulay oo ugu horeeyo gudoomiyihii hadda inala hadlay Saciid Sheekh Abukar iyo rag badan iyo gabdho badan oo la shaqeeyay oo xafladan suurto geliyay oo aniga iyo wafdiga ila socdana ilaa maalintaan midna ag taagnaa aeroboortka nagu soo dhaweeyey inta ka dambeysana naga warhayay waa u mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa dadkiinaan caawana soo sharfay oo halkaan yimid oo waqtigooda soo horay marka dadkaas waa u mahad celinta ka sokow waxaan wax yar idinka sheegayaa ujeedada socdaalka iyaga iyo noo suurta galay kabacdina waxaan warbixin yar idinka siin doonaa kooban dalkii aan ka nimid dalkeenii kabacdina waxaan isku dayi doonaa inaan talo idinla wadaago halkaa waxaan uga soo qeyb galay shir la yiraahdo shirka madax banaanida ama xorriyadda saxaafadda oo ay ka soo qeyb galeen ilaa 200 oo dalal iyo hay-ado oo ku jiraan ugu yaraan 60 wasiir oo badan wasiirada arrimaha dibadda meelahaas oo dhan kulamadaas oo dhan oo kulmada ajnabiga ah oo wasaaradda arrimaha dibadda Ingiriiska la yeelanay iyo kuwa Norway waxaan uga wada hadalnay xiriirka horumarintiisa iyo labada dal ka dhaxeeya ama Ireland iyo Soomaaliya ha noqoto ama Ingiriiska Soomaaliya ha noqotee iyo sidii loo sii xoojin lahaa طبعا uga mahadnaqnay wixii gargaar oo ama taageero ay noo geystaan inay sii badiyaan oo u sheegnay ayaguna waxay tilmaameen inay ku faraxsan yihiin horumarka Soomaaliya ka socda positive change-ga ama isbedelka lagu maartay dhiirada dalka ka jira waxay si gaar ah u amaanaan kulligood labada qolaba kaalinta jaariyadda Soomaaliyeed ee dalkooda jooga ay leedahay ama wadankooda u leedahay ama dalka Soomaaliya u leedahay marka hadaa ogaan lahaydeen awoodiina iyo sida leedin arko waad kula sii dhiiranaan lahaydeen waana sii dadaali lahaydeen dadaalka hadda baad wadaan oo fiican baa mid ku sii dari lahayd kaas wuxuu ahaa
socdaalka iyaga ujeedadiisa iyo intaan joognay waxyaabihii qabsoomay iyo maaragtay meelihii aanu la kulannay. inta aanan warbixinta u gelin waxaan idiin wadaa bishaaro iyo salaanta waxaa idinka wadaa madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre. waa u baahnay nasashadaas. marka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waa idin soo salaamayeen. aada ayaa laydinku hanweyn yahay kaalinta aad dalka uga jirtaan iyo waxtarka aad samaysaan. adduunkana aan ugu faano firfircoonaanta soomaalida diasporada joogta. bishaarada aan idiin wadnaa waxaa waaye waxaan idinku bishaaraynaa inuu mar dhow imaan doono London safiirka Soomaaliya ee Ingiriiska iyo Ireland insha Allah. marka safiir ayaa imaan doona. waa muddo ayaa tabayseen. waxaa kaloo jirta in dalka Ingiriiska oo dalalka noogu muhiimsana oo dal ka mid a dalalka maaragtay leh xubnaha joogtada Security Council-ka dalalka ugu dadaalka badnaa arrimaha Soomaaliya xagga supportiga iyo xagga advocacy-ga ama doodidda. shirar badan oo waaweyn qabtay. allah sidaas ku wado. sababtuna waxaa weeye nimankii waa la sii durkiyey. meelo ay ku jireen shabeellada hoose inaa maqasheen maaqaan iyo waa laga saaray. dhul badan baa laga qabsaday. xamar waxaa ka bilowday in dadkii iyo hay-adihii amnigu isla shaqeeyaan oo iyaduna yaraysay xumaantii ay ka wadeen dalka. waxaa bilowday in la qabto maaragtay cells ama unugyo ay dalka ku lahaayeen. marka nabadgelyadii dalka waa sii hagaagaysaa. shabaabkuna anyway mararka ka mida wayba iska dhiman lahaayeen, way iska dhiman doonaan. su-aashu waxaa weeye meeqay nagu qaadanaysaa iyo maxay waxna yeelayaan intaysan dhimanin. laakiin maadaama aysan islaam fiican wadin ay xaasid yihiin oo dadkii laynayaan dabeecadda ayaa dilaysa. wixii aan natural ahayn waa iska dhintaan. marka way iska dhimanayaan. soomaalidii iyo adduunka kaloo nagu kaalmeeyaana gacan buu ka geysanayaa siday u dhiman lahaayeen. ururo iyaga camal oo waalan taariikhda islaamka way soo mareen. haddana waa footnote. qof oo yaqaana ma jiro. maaragtay carabiga waxaa lagu yidhaahdaa ghuluw, dadka oo diinta inta ku wareera sababta rabta ha noqotee waasho oo maaragtay xadgudba. talada labaadna waxaa waaye inaa idinku aada kaalinta aad kaga jirtaan sumcaddaas dadka Soomaaliyeed aada ku dadaashaan oo waddankan aad joogtaan aada qeyb fiican ka qaadataan. aada noqotaan good citizens oo dalkan ka volunteer gareeya oo dalkan abaalka inoo galay oo idin soo dhaweeyey aada tusaale fiican aada qeyb fiican ka qaadataan. mujtamaca ka mid noqotaan. aada dareentaan inaa Ingiriis tihiin Soomaalina tihiin laakiin dee Ingiriiskuna xaq uu idinku leeyahay oo aada ambaashtaro fiican noqotaan oo ku dadaashaan waxbarashada. waxbarashadu meelay ku istaagto lama jirto. dadka waaweyn wax baran karaan, dhalinyaradana waa goobaabin kartaan. tan ugu dambeysana waxaa waaye dalkii soo booqda oo imaada
si aad u ogaataan waxaa ka socda haddaad dalkii sanad ka maqnayd waxbaa iska bedelay you will be surprised horumarka ka socda oo joogtada ah by the way dalka markaan leenahay waxaan ka wadnaa markaan kii gaarka ahaa iyo kan weyninta including ilaa Hargeysa ilaa Kismaayo and in between marka dalka hadda sidaa u taqaanid haddaa u taqaanid tuulada ayeedaha joogtayna soo booqo at least ayeeda ka soo ducayso soo arag waxaa ka socda haddii kalena xamar iyo soo fiiri anigana ballan ka qaada inaa idin soo dhaweeyo haddaa xamar timaadaan oo soo wacdaan waa mahadsantihiin inaa maaragtay noo timaadeen marka hore shahaado sharaf ay jaaliyaddu ugu talagaleen ayaa jirta wasiirka oo ay rabaan inay guddoonsiiyaan marka guddoomiyaha jaaliyadda shahaado sharaf ah oo ka socota jaaliyadda Soomaaliyeed ee London soo dhaw doctor siin kartaa